kulan wacan wanaagsan idil ahaantii bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa xaaladda Itoobiya oo haatan karkaraysa iyo waliba warkii ugu dambeeyay naga soo gaadhay Addis Ababa iyo dowladda deegaanka Soomaalida qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo la kulmaya cadaadis xoogan kadib markii beesha caalamku ay sheegeen inay Itoobiya qarka u saaran tahay inay burburto Obasanjo oo hogaaminaya wafdi ballaaran iyo madaxweynihii hore dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa gaaray magaalada Maqale caasimada deegaanka Tigreega taasi oo ay ka wadaan dhexdhexaadin lagu dhexdhexaadinayo aan iraahday amaba dib loo cusboonaysiinayo heshiiskii burburay ee u dhaxeeyay dowladda federaalka Itoobiya iyo waliba kooxda TPLF waxaana laga cabsi qabaa inuu dagaal dhex maro waa TPLF iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya oo hogaaminaya aan iraahday dalkaasi dhanka kale waxaad ku maqli doontaan xogaga Faano oo ayagu laftigooda war cusub soo saaray dhanka kale waxa kale oo daawadayaal barnaamijkan idinku hayna khilaafka cirka isku sii shareeraya waa ONLF iyo waliba aan iraahday dalkaasi Itoobiya waxyaabii uu ka kacay qoraalka uu ku qoray aan iraahday barta Twitter-ka ee ay soo galisay TV-ga lagu magacaabo Faano iyo waliba idaacadda qaranka ee dalkaasi Itoobiya laga sii daayay ayaynu daawadayaal waxyaabaha ayuu ka kacday hawshan iyo waliba waxyaabaha salka ay ku hayso xogan naga soo gaaray dowladda deegaanka Soomaalida ayaynu daawadayaal ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena dhanka Soomaaliya hadii aynu u talowno deegaanada Hobyo waxa saldhig military ka samaysanaya wadanka bariga iyo waliba xeebaha dowladda Turkiga oo sheegtay in ay Soomaaliya ay saldhigaasi uu noqon doono saldhig weyn oo ay ka caawiso dalka Soomaaliya kooxihii ka dhurdurdayn jiray koonfurta Soomaaliya ayaa deegaan hadda ka hor laga xoreeyay ayay la wareegeen sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba dad madax banaan oo gobolada galgaduud iyo deegaanadaasi ku sugan ay shaaciyeen aad u dheer oo ay ku jiraan xubno sarsare oo ganacsata iyo waliba xubno ku jira dowladda federaalka ee Soomaaliya ayay Mareykanku soo saareen kuwaasi oo ay ku tilmaameen in ay kooxaha ka dhurdurdeeya koonfurta Soomaaliya ay bartanka kaga jiraan haatan ay dhex fadhiyaan villa Soomaaliya iyo waliba ganacsatada dalka Soomaaliya haddaba xubnaha oo la tilmaamay inay ku jiraan xubno caana ayaynu daawadayaal ku qaada dhigi doonaa sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhaliilo waaweyn loo jeedinaya kadib markii nin lagu tilmaamay inuu ahaa geesi oo kamid ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu soo dhiibay kooxaha ka dhurdurdeeya koonfurta Soomaaliya haddaba arrimaha ku gadaaman dalka Soomaaliya iyo waliba aan iraahday sida ay uga dhaganayeen cadawgooda Itoobiya oo ayadu had iyo habeenba ku seexanaysa sidii ay mar kulli qiilahay dalka Soomaaliya ayaynu daawadayaal ku qaada dhigi doonaa barnaamijka waxay la darandoorin doona aalaana sooba indha saaxiibka Dr. Shide oo asagu indhaha ku hayay waxaana alaaba ku bilowna xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya barnaamijka si shargareeya la sii wadaaga saaxiibadiina ayaanu idin leenahay idinku aad iyo aad u mahadsan shida ku soo dhawaad waa dhawaay saaxiibe shidow bal Itoobiya waan aragnaa way qasan tahay waxaynu ku horeynaa bal qoladan ONLF iyo hadii ay ku soo nugul Itoobiya hawsheedu oo si karar qaatay waxyaabaha oo khilaaf uga kacay iyo maaday oo sheegay in Itoobiya aan loo dul qaadan karin waxyaabo fara badan buu sheegay waxa soo idil weynu ku la faguri doonaa laakiin bal waxaynu ku horeynaynaa wafdi ku qulqulaya Makala ee sheegay inuu heshiiskii maadaama burburay inay cusboonaysiinayaan laguna cadaadinay labada dhan inuu dagaal ka dhicin dalkaasi Itoobiya maxay kula muuqataa aad iyo aad baad mahadsan tahay Colonel Farabgudow ee magaalada Makale caasimada gobolka Tigray waxa gaaray wafdi afar jiha ka kala socda Mareykanka midowga Yurub UN iyo midowga Afrika ayaa gaaray oo madax sarsare ay kala hogaaminayaan Makalena waxay marti gelinaysaa culayska abid ugu cuslaa oo beesha caalamka looga hadlay xaaladda cakarina ka taagan dalka Itoobiya iyo foolkaanada colaadeed ee ka taagan dalkaasi Itoobiya iyo xisbigii BB ee talada dalkaasi hayay uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo moodid inay xarkaha u go'een oo moodid inuu cimrigoodii uu gabagaba marayo caalamkuna uu si dhab ah wax ugu sheegayo qolyaha mucaaradkana hadda awoodooda ay noqotay in loogu tago geedihii ay
ku hoos gabanayeen iyo guryahoodii in lagu booqdo oo halkaasi tala wadaag xaaladda dalka Itoobiya waxa laga weydiyo faragoda waxaan ogsoonayn waftiyadan aadka u ballaaran ee dalalka ka kala socda kala duwan inay soo gaareen magaalada Addis Ababa dhawaan kulan weerar laba maalin qaatay ay la galeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxyaabo badan bay isku afgarteen oo wixii hore dhan wax badan ka soo tanaasulay oo markii hore korneelku ismoodaya awood aan la leecin karin inuu yahay oo dalkan Itoobiya uu boqortooyo ka noqon doono muddo dheer si xukumi doonto laakiin waxaan moodaa hadda inuu godkiisii biyo ugu soo galay korneelkuna hadda uu fashilka u weyn ku jiro waxyaabo badan hore korneelka aan loo weydiin jirin ayuu hadda ogolaaday in la weydiiyo xataa lagala naqaasho ama lagala hadlo iyo ogolaaday baa la leeyahay oo sida aha ama dawlad ku meel gaar ah ama xilkiisa oo gorgortan hadda ku jira iyo inuu dalka uu burburinayo oo asagu uu taariikhda ku suntaraan doono waxyaabo badan korneelka hadda ayaa askarab yaacaya adoo already korneelka way la shireen wafuudahan kala duwan korneelkana waxay isla galeen meel fiican bay isla gaareen waa kuwii dabcan ay tagaan baxardaar amnaankeeda loo damaanad qaadi waayay waxaa la sheegay baxardaar inay nimanka faanadu ay ku xoogan yihiin saacad kastana wax dhici karo sumcadda dalkan waxaan kartaa madaxdan ay waxyeelo soo gaadho amaankooda la damaanad qaadi waayay waxay u janjaarsadeen meesha iyo makale وعاصمة gobolka Tigray عاصمة gobolka Tigray baa si weyn loogu soo dhaweeyay waxa soo dhaweeyay madaxweyne ku meel gaarka Getachew Reda iyo gudoomiyihii xisbiga ninkii Gabrasiyon Gebre Mikael lahaa iyo saraakiisha ciidanka ayaa soo dhaweeyay halkaas waxa ka soconaya kulamo xasaasi ah oo xaaladda dalka Itoobiya looga hadlayo waxa la soo qaada dhigay dawladda Itoobiya iyo xoogga Tigray waqtiga xabad joojintii heshiiskii ka dhacay Pretoria dalka South Africa dalka Kenya lagu soo ganaanuday lana rabay in la dhaqan geliyo halka uu marayo cidda uu ka socon waayay iyo cidda dhibaatada ku ah in si dhab ah farta loogu fiiqo maadaama dhawaan Getachew Reda qoraal Twitter-ka ku qoray uu sheegay inuu barnaamijkii heshiiskii ay dawladdu ay galeen inuu gabi ahaanba uu fail garoobay maanta laga bilaabana in dawladda Itoobiya wax tala wadaag ah oo dalka xaaladiisa ayna iska wareysan doonin waxa ka dhaxeeyana ay noqon doonto kaliya in bahasha gudanaa dhimbisha ama xabada shanqadheeda la maqli doono midaas oo beesha caalamka si weyn hal mar soo kicisay hadalka Getachew Reda markii la maqlay adduunka dhan hal mar soo toosay Mareykankii midowga Yurubkii midowga Afrikii UNT hal mar ay Addis Ababa laakiin waxa la isweydiinayaa Itoobiya oo horta heshiis ay gashay dhaqan gelisay waligeed lama hayo Itoobiya dhaqankaas way leedahay marka maxaa laga sugayaa haddana hadii la kala qaboojiyo heshiis ay dhaqan gelin ma jirto Itoobiya يعني maxaa nimanka lagu horeynaya hadda waxa laga hadlayo qolob muhiim yahay qolana muhiim ah hadda waxa laga hadlayo waa mid Abiy Ahmed cimrigiisa gabagabeynayay waxa hadda laga hadlayo waxa waaye Tigray waxay sheegeen in ciidankooda hubgadhigis ku sameeyeen dawladda Itoobiya ay si fiican ay u yimaadeen Addis Ababa ay yimaadeen ayna dawladda ogolaadeen in ay hay'adaha amniga sida booliska federaalka ay markasta ay kala iman karaan oo xarumooda ay dib u furan karaan ay sheegeen hubka dhigisna ay sameeyeen ayay u sheegeen dawladda marka barnaamijka socon la ee dhibaatada hadii la fuliyana Itoobiya ku noqonaya balaayo dhibaato ku noqonaya hadii la daayana dhibaato ku noqonaya yaan ku tilmaamaya waxa waaye dawladda Itoobiya Tigray waxa heshiisku wuxuu ahaa horta dawladda Abiy Ahmed inuu dalka madax banaanisa ilaaliyo dalka Itoobiya inuu madax banaanisa ilaaliyo oo dawladda federaalka ay mas'uuliyad qaadato Tigrayguna ay yihiin dawlad goboleed ka tirsan laakiin meesha khaladka ku jira farta ku fiiqi kara inay yihiin waxay ahayd gobolka Walqaytar la dhaho qolada Axmaaradii Eritreanku ay haystaan inay dawladda Itoobiya ay ku soo celisay gacanta Tigray maadaama dastuurkii hore